waa nina luulay waxa dumar oo kaysis sida muuqaalka hordhiciisa ku soo aragteen aniga ayaa yaabay adigana waa yaaban tahay dabcan labadeenaba wax naga wada yaabiye ayaa maanta idiin wadaa naagtana astaghfirullah ninkana u jeedin waa nin dabcan waa ina aamintaa 2026 wax walba ina aaminto ku khasban tahay ninkana u jeedin wuxuu iska dhigay naag asagoo waliba cid u shaqeynayo qisadan sidee ku dhacday bilow ilaa dhamaad raba ina ka dabgeeyo laakiin muuqaalka intaana bilaabin fadlan waxa ka codsanaa ina like dhigtid channelkana subscribe inoo saartid naagtana astaghfirullah ninkana u jeedin dabcan waa nin waa ina aaminta waa ku khasban tahay cadeynta wax walba ana ku hayo ninkana u jeedin wuxuu iska dhigay naag wuxuu ku nool yahay Hargeysa hal sano ayuu cid u shaqeynayay ugu dambeyn wuxuu Ilaahay ceebtiisa astura maanta ayuu fashilmay subaxii asagoo hurdaay maamo kamida maamada guryaha ku nool waxay aragtay ninkii oo feere qaawen ilaa wax xabadku ugu jira waa maryo iyo wax booja muuqaalkan fiir hadda Rajestina meeshan ugu jeedamaano sida loo suuraanayo ilkaha bira ugu xiran niyow qaniiskan waa qaniiskii ugu horeeyay gabar u maleeyay aniga ku qaldanba hadda ka hor muuqaalkan iga soo horbaxay naftirkiisa buskuda taa u qoray Ilaahay ga cafi dambigaas waa ku qaldamay laakiin qaniiskan waa qaniiskii ugu horeeyay oo naag u ekaaday qaniisyada hore waxa laga yaabaa gar iyo shaarbe waxaas afashili jiray dabcan ninkan garna ma lahan shaarba ma lahan soo isku qalqaloocinay dadkii la shaqeynayay oo guriga kula noolay oo u shaqeynay dabcan ka wada fahmi waay gabar kamida gabadhaha guryaha oo kula nool yahay fiiri muuqaalkan la duubay ilaa kan inay ninta way aamin la adahabo dadkii dhan waxay u maleeyaan naag laakiin markay maamada aragtay laamaha amniga u wacday ninkan askara loo keenay waa kana asagoo dharka laga dhigayo ceebtiisa Ilaaha fashilay iimaanka alla ka qaad dalaa kala dawladda waxaan ka codsanayaa ninka makhnuudka oo naagtiis ka dhigay luuqiisa fariimaha iga yaalayna dhiliida niman badan oo ninkan comment fiican uu qoray luuqa lambarka uga qaadanay gambarkiya la jabay inkastoo aan ku jirin hal mar comment iga fakaday waana ka toobad keenay laakiin rag badan ogahay gambarkiya la jabay bal Ilaahan kugu dhaariyay ninkan dharka si looga dhigay ila fiiri waxa xabadka ku watay waa wax been ah alla qaniiskan waa iga gadanyaa soo u suuroonayo soo isku jijibinayo gabdhihii xitaa saama sameey karaan qaniiskan waa qaniiskii ugu horeeyay oo gabdhihii macnaha ka qurux badan dhigi karaa qurux badan ana Allah kugu taal kan asagoo nin oo saan noo waale haduu naag halay maxamed leeyahay war maanta muuqaalkaana iga yaabiyay dabcan TikTok oo wareegoya dad badan wixii fahansaneen laakiin intaas ku saabsan tahay muuqaalka waa idin soo kooba in idin ku dheereeyo mar rabo dad badan ninka reaction ka soo bixiyeen qaybtan kora idin soo saara sidoo kale TikTok-giisa no buuq ku qoran qof walba uu aadi karaa oo soo fiiri karaa ninkan waa la hayaa laamaha amniga haayo waxaana ka codsanaynaa ninkan inay laamaha amniga ee keenaan tiirka cadaaladda waayo dad badan oo iimaan ka soo riday qaniis waaye nimankii iyo balaayadiniyo dabcan inay ku fogaadana mar rabo waa iska nin dhalinyarada duruuf inay u geesaa laga yaabaa laakiin muuqaalada reaction-ka laga bixiyay ee ku saabsan ninkan ayaa inta idin soo saari doona dabcan ila daawada adinkana fikirkiina waa inoo muhiim qaybta hoose comment-iga nagula wadaag dad badan hadda aaminin laakiin waa ku qasban tahay inaa aamintid bal muuqaalada